waxaan ka hadlayno ama hadda aan guda galayno waa wax la yiraahdo Nederlandse VGV way dhahaan. VGV dat houdt in vrouwelijke genitale verminking. Waa dumarka iyo gudista. Sida loo gudo. Iyo wixii macnaha ay natiijo ahaan ama dhibaato ahaan ka soo gaartay. Su'aasha ugu horeysa marka waxay tahay als groep gaan we bespreken wat betekent VGV precies. Macnaheedu muxuu yahay vrouwelijke genitale verminking. Waxaan leenahay dumarka la gudo inay tahay dhibaatada soo gaartay. Gabdhaha dhilaa meesha dumarka fadhiya. Gabdhaha la gudo. Hoe kunnen wij VGV herkennen in de praktijk? Ze u arki karnaa ama ay noogu muuqan kartaa markii dumarka ay soo marto xaaladda ama gabdhuhu xaaladda soo maraan dareen ahaan iyo xaalado caafimaad darteed ay baan kula malaynayaa in erkeen ay tahay yaa buubataydkooda oo marka ay caado timaado waxaas oo kale haddii gabadhii la guday gabadha kale isku mid maaha ku xanuunsadaan waa dhib bay kala maraan laakiin anaga Soomaali ahaanta buubay noo tahay waxaan fircooni waana soo gaaray waa isu soo wada diibay laakiin inta marka imaan biseef haddii ciyaalkii la guday dhibay kala kulmaan way sheeganayaan laakiin Soomaali ma sheegan jirin marka waxaan dhaqan u leenahay fircooni waaye dhaqankeena waa ku jira dhaqankana waa ku jiraa laakiin diiniyan yaa sunno way jirtaa laakiin anaga sida Soomaalida modoto ama loo xiriiro isniid hadda aniga biseef ka waa normaal ah jirna Soomaali jooga laakiin asii telefisiyo waxaad ka aragto isbeji farminking waaye sabab khalad daqta porcent. En wie kan het voorbeelden noemen of ervaring delen of vertellen? Ja, nala qaybsan kara ama noo sheegi kara tusaale ahaan waxyaalahaas gabdhaha ama dumarka ka arkay oo ay u sabab tahay gudista. markii hore intaan anagu ka garanayo ama intaan maqlay sidoo ninkan sheegay gudniinka fircooniga waa wax jiilka jiil soo dhiibay oo dhaqan aad u khaldan kulay aniga ilaa sharciyan daraajada qofkoo lagu tacdiyo jismigiisa dareenkiisa ilaahay u sameeyey iyagoo u daliishanayo le macnihii sunnadii iyo gudniinkii baan raacayna iyadoo asbaabada badan oo caafimaada loo samayn karo islaam baa googoynaysa toltolaysa qofkii markaas dee aad tacadi badan baa loo geysanaya inta ugu muhiimsan laga marayaana waxa weeye gabadhaas in dareenkeeda loo kontroolo si awooda loo adeegsado oo ama dareenkeeda loo dilo si loo xakameeyo intaasi magaranaysa inaanay dareen ama hamuun iyadoo dee dhaqan ahaan asaliyada ay dee diin ahaan iyo dhaqan ahaan baa ceeb ka ahayd inanta aan macnihii toltolayn xaaladdaa marin xitaa haddii la guursado lagu arko xaaladda waa lasoo furi jiray taasoo sii adkaynaysa in mar walba uu dhaqankii sii shaqeeyo waxaan xasuustaa dumar badan oo loo soo furay macnihii intii la guursaday la arkay inaanay tollayn oo dabeetana dib loo socdo la yidhi reerkeedii lagu celiyay marka kulley intaan aniga arkay muhiimadda laga lahaa horta waxaan intaasun bay ahayd dhaqankiina waxa sii adkeeyey inuu jiilba jiil sii dhiibo dadkii oo la qabatimay ninkii oo raba gabadh bikradii waxaan ka aaminay bikrada dee sida diiniyan aanu naqaano bikrada dee ilaahay ba qur-aankiisa ku sheego waa baab kale laakiin bikradiina waxaan u naqaanay ka islaam soo samayso ee afka ka toltosho bahalka kaasay bikradii ay dadkii Soomaalida ahaa u ayideen taasaana sii adkaysa nin walba inuu ku hamoodo inuu gabadha bahalkeedu u xidhan yahay wixii u xidhan yahay marka anigoo soo gaabinaya muhiimadda laga lahaa horta intaasi ahayd laakiin dhibaatooyin badan oo berigii aan la ogeyn oo jaahilnimada darteed caafimaadka dartii siduu ninkaasi sheegay dadka dumarkii oo aan waalidkii kontaakti la lahayn darteed baanay waxba u sheegi jirin laakiin iminka maadaama casriga nolosha isbedeshay wax la ogaaday dhibaatooyin badan oo dumarka ku hayay dumarkii sheegteen markay dhalaan xarumaha caafimaadka markay tagaan kaliya xanuun maadan xanuun waxyaabo badan oo noocaasa difaaci jirkooda xumaada marka كل دباتي شو بدن تيجي نكوا كور هاي. Die vrouwen die je net noemde, die achteraf dus ze gaan trouwen of ze waren getrouwd en of wilden ze trouwen, dan kwamen ze achter dat ze dus niet meer maagd zijn of echter niet besneden zijn. Ja. Nou, om tevreden te stellen met de aankomende man en misschien zijn familie, gingen ze dus terug. Ja.
om weer dichtgenaaid te worden. Waarom weer? Dat wordt gescheiden. Dat is gewoon gescheiden. Niemand gescheiden. Ja, dat is als al getrouwd is, maar als zij voor de trouwerij al probeert dichtgenaaid te worden, om alleen die man tevreden te houden, dan is dat dus, dat is een traditie dus wat eigenlijk niet klopt. Gevolgen is dat er dus moeite gaat met ongesteldheid, gezondheidsproblemen. Daarnaast, als zij ooit zo'n vrouw zwanger wordt, dat zij dan ook moeite heeft met de bevalling. Of sterker nog, geen moeite, maar misschien extra risico loopt om inderdaad normaal te bevallen. Volgende. Oplossingen. Mannen. Wat zijn de oplossingen die jullie kunnen bedenken? Kohortagga, ama se uga hortagnaa gudistii iyo natiijooyinada macnaha natiijada xun ee kasoo gaaraysa ama dhibaatada kasoo gaaraysa dumarka iyo gabdhaha se uga hortagnaa maxaad fikrada haysaan? Sunna macnaheeda maxay tahay? Hala sunneeyo Danish nature, voor de clitoris, waardoor dat als gebloed is, dat is zonde, dat is klaar. Dat is Maar niet dichter naar jezelf als je Maar dat staat ook nergens op. Maar alsnog. In sommige landen, bijvoorbeeld Saudi-Arabië, hebben ze eens niet de sunnah. Nee. Dus we zijn moslim volgens de boek. En volgens de Koran en hadith. Maar het staat nergens op dat we moeten een meid of een meisje moeten besnijden. Dus dat is al onzin. We hebben al die jaren dit cultuur, even hoe zeg je dat, geaccepteerd en stand gehouden, maar het staat nergens op. Nee, dus wat wij moeten doen is gewoon misschien mensen even informeren en en begin bij jezelf, bij je familie, bij je omgeving, waar je leeft, waar je woont en even doorgeven. Dat is het punt. Maar ik denk niet dat we hier in Nederland deze probleem hebben. We hebben deze probleem niet. Hier in Nederland mag niet een vrouw besnijden. Als iemand zijn kinderen naar Somalië brengt en gaat besnijden, dan krijg je een probleem hier. Dus de enige ding is, laten we verbieden in Somalië. In het Somalische wetboek maken dat het verboden moet worden, net als hier. Dan kan, kijk, in Kenia is verboden, kan je niet doen, nou, misschien een privéhuis of zoiets, maar niet volgens de wet. No. Maar hier in Nederland en Europa we hebben dit probleem niet. Ja, 20% gebeurt in Nederland wel dat mensen willen brengen zoals stiekem aan kinderen. Nou, Somalië brengen dan... Ja, maar onder 3 jaar of 4 jaar, als ze een vakantie nemen, moeten ze niet praten. Gewoon later kan ze consequenties krijgen. En wat jij zei, inshallah, islamitisch staat nergens op. Maar wat wij doen is gewoon oude vieze mes gaan allemaal dichtnaaien. En met rijstesten, dat is... Zo is gewoon gitaar gaat een beetje laten bloeden, een beetje afsnijden als het lang is. Maar niet die deuren even dicht doen. Bij Somaliërs doen we gewoon helemaal dicht. De jongen moet hij tevreden houden. En jij krijgt ook, als je maagd krijgt, je kan niet genieten. Na 1 week met die olie, alles moet je gebruiken om hard te breken. Het is allemaal zo helemaal dicht. Het is gewoon fout. Maar welke concrete aanpak hebben we hiervoor? Persoonlijk, ik vind sowieso zo'n vieze praktijk, waarbij met z'n allen moet tegenhouden, ongeacht op welke manier. Dus zoals onze broer heeft gezegd, gewoon begin bij jezelf en ook hardop met de familie en met kennis zeggen, dit is gewoon een vieze praktijk, laten we gewoon stoppen. Ook niet alleen hier, maar ook in onze moederland. En de consequenties zijn groter dan wat wij net noemen. Niet alleen gevoelens, niet alleen over, maar is een grote consequentie voor iedereen die betrokken is. Niet alleen de man, de familie, de kinderen hebben last van. De moeder heeft zelf meerdere keer last van, niet alleen bij de bevalling, maar ook hele omgang met haar geslachten. Alles is gesneden, ze kan niet eens vergelijken met normale andere vrouwen bijvoorbeeld. Dus de hele trauma is gigantisch groot. Ik denk persoonlijk dat heeft te maken met, ze hebben zelf meegemaakt. Dus ayat de Koran komt daarin, dus ze hebben zelf meegemaakt, dus ze willen ook hun dochters, net als traditie, overdragen aan hun dochters. Dus daar is de hele, dus als de moeder zelf niet beseft dat dit wat gebeurd is, was verkeerd, was het gewoon, daar begint het mee. Maar hoe is het nu in ons land? Hoe het nu gebeurt in Somalië?
Soomaaliya Muqdisho سأنا كشكل سي المجرى الله كيناي لو أنا بقدر جشتها لا واحد أصدق حسب سنة جشتها لكن قولي إذا كاني معي إلى السوق بدو وأنا كحوا والهين وواقع حاجة كده على وكسان وعبارة نقطة مركز أكتر أفضلها وقت هذه النقطة تقولي يا أنا كانوا لكن وش شيء وكحري إلى السوق بدو قولي إذا كان ما أنت كده عليك أنت عارف أنت مثلا تتكلم كسؤال قلت أبي قلت كم تقول أنا قبل شربان تشابين أنا مش اوكي والله لما شربان واحد تشابين أنا مش كده يا داري يرويني اللي عن عدو بيننا وحياة اللي دجالي وحشرين كسفر بين وشكوى كرمة تجمع حالة عطارو كمان كوا يروي هذا سيدنا كل شيء نقدر نقول كقاطع اللي هنا مثلا يقول ويقول لا ما كانت شو ما كان خوف البدء حتى هو بيقول عيالك سيبوك ممكن كانوا سيارة هذا حلو حتى عمر اسمه مش عقول بعد تعرف نقطة أنت حتى بريء تبقى بس تقولي كذا نقطة حتى تبقى شيء مو فوق مركا واحد عليه إنا ما تعرف كنا شيء ما كنا شيء بشري حرق شيء بشري حرق يصاحي والله أنا هنا تجي أسام لي وأنا ربع دروس تجينا ويبيني أنا دور جاب كل نقطة يعني سلمان تقوان قانون لكن قبل الرصاص ما ما كان لكن قبل الكل it's like $200 something like that still فامليها هي سنة الفماء مكان قبل ما كان ويناته أنا بقول ما صار محلي لا كاس قبل وجبت مقدنا إنسان يبدل جيت حلي عصر الجاهلية وحبي يحلي أنا سومالي وحن كليه أيلو أب إني دم بتهجيري إيه هذا الصناعة وأنا كذا أنا كذي نما هذا أما الثالث يوم زمان ما يخلق أنا دي كل وقت تلك الله فلا الله وأمير الصومالي مش مهمته سؤال شو قدم بيسي وأحمد هنا ويديني حلقة نيو حلقة تو أنا جاهم وحيلته حلقة بريء هراء دهبلها waxa waalidiinta fatraawga ku yareeyay in inta markay baalaqdo in ay control karto fatraawga waxa ku yareeyay contacti kamu dhaxayn qofka inuu isoo naftiisa leeyahay uu magaranaysa aaminta ilmaha markuu ka baxo ayaa aad u yaray ku kala xitaa intii markaan cilmi maadi cilmi diini toona la barin xataa waxba ma kala manage gareyn karto qofka khaldaya qofka saxaya feedback waxaan u baahnaa laakiin hablihii imka hadla badankoodii dalada dibadda waxbay barteen dumid ilaahay de xumaatada ugu tala galay ama de iyagu ugu tala gashay mooyaane ama de aqal xumo xun iyo fudud khaldan qaadatay mooyaane badankeeda hablaha aan waxaan aaminsanahay inay tii ugu tala gashay mooyaane inay إنه ما حدا ككنترول بدني مقارنة ككلسوني بدني أو أكتر معني مستقبل كذا يهدا لكن بريء ورا حكوا كل في والدين تا أمنات بدني ميتين الله قوان هاي لم تنا قوان يدرس كل دفاع المرأة والد كنوا هو بيجينا تنينو حبس عام قرب هاي أم قال وقدرنا أنا بحين وحبك على قرار الدين خذ وشرفت هذا هي ما زارك وأنا بحية قبل الجود وجرته أما الجود مين قالت تتولع من الحبس ده وحلاها درس بيصير أبوك وشيء وحلاها هاي إن شغال قبل ونوع إنه ما فينا إن الرجال سماه ما كلا آية إن إحنا قبل كن كلا رنا Soomaaliya hadda mid soo sheegay islaamo wax may baran jireen haday dhakhtartan qatulina waa guursanaya waxa naagtu wadniga guriga odayga madaxa guriga waa wax walba naagta si walba wax barato waxa hooyada wax baraysaa inay xirnaato la tulo oo cuntada barato gaarina qabto 4 mitir ay xaaqdo ay sameeyso
marka waa la ilaalinayaa si loo guursado si aysan iyadoo soo daraa problem waxaa jirta hadda madadan gabadha haddii lasoo gudo waa loo samayn karaa tintirka oo lagu celin karaa sax wajigu maan hadda xaasaskiina inaad dhakhtarka geysaan oo dhahdaan tintirka usoo sameeya gabadha ugu yar oo la guday oo mataqaana waxba kala ogeyn inaad ka dursumo waa dhibaato waa inaad iska dhaadhicisaa qurbaad waa berigi hore oo keeba maxay ahayd cuntadeedii waxa aadahay gabadha laga guursado bay ahayd ninkan hawsha saasiskahay shaqa may jirin wax may jirin gabadh yaran hadda wax walba way kala og tahay intay ku dhalatay adaa u sheegto aabbo kugu fiicna ama islaamka u sheegto dhahdo gabadhaada la hadalo bal socodka ha yareyso intaa la guursan caabiya noo keena hadday hooyad la hadasho is ena jaahilnimada la dagaalamaynaa si jaahilnimada oday wuxuu dhahay annagina iska bilowno ilmuhu banaankiisa xagga isbitaalka hageeyo no hadda we have an intercourt now hadday ilmihinaaga ku dhaleen godkii caadoo qodanaysaa laakiin uma baahnid waqti ma joogtid maxay ahayd dadka dhaayaad boodadka oo isku filnay waa geed oo mataqaanaa si fiican u korin mataqaanaa maarta geedka markuu la leecanayo waa naagta is hubinde waa in marka xarig lagu xiraa inta xarig lagu xiraa kintir baa u baahnay naasina wanaystaa u baahnay okay waa naagtaani waa la soo gooyey hadday ku furan tahay just keep it there laakiin dadka next generation maya next generation waxa weeye dadkeena hooy waxaan hadda dhaqanka Afrika ku haya waa annaga waxa dhoofaya tagaya xagga tagaya toddobaad jirka America tagaya ee raba gabar yar inuu ka dog qaab waa hal in la wacdi geliyo أنت كنت جد قرا كنت جد راسيا مايا أنا كني بدي باهي بحيسا كنت جيبها تاي قبل حتى جذور كنت الحكاية بوسو لكن dadka ku gumaysan oo boqol bixinayso ama 3 boqol oo bisha u dirayso gabadha uu yahay iskool ka baxday wax samaysan leedahay hooyada dhibka ay martay ayadu uu taamta haday dhalmada xanuun fircooniga ee ka gudniinka fircooniga haday dhalmada haday wax walba tahay dhibaatada in martay ayadu og ee haddana ay u ogolaan gabadheeda inay marto adiga qabo waxa laga yaabaa inuu yiraahdo ruuxaas ay leeyahay aniga saacadii tahay gabadha hooyooyinka inta waxyaabaha ugu qasbi kara inta dadka gabadheedana waxa soo jira ama ma gudi karo ma diiraado yani hooyadu waxa laga yaabaa inuu 50-50 leeyahay dhaqaale kale ma jiro waxa loo sameeyay waxay ahayd inay reer dhaqato guri hagaajiso bariis kariso taabisa marka inta markaad joogto taas ku fikirto adoo marka wax xawaalad ka yahay digrinta laga maqalto ninkan oo fudud هذا أنا أنا أدعيك يسكت على هالليس وكفوده أنا بقول له أدي سكت على الله الليلة سيد على هذا كانوا قالوا هي بعتها يا إلى تفسير يعني ما يونس الحوار برته يا هو يا عروس واحد وقوف في الوقت المهم كان هو هذا الشيء هذا واحد سكيل هذا واحد خلونا الله لكن قلناك واحد بربو إلى ilmihi ma la hadlo communication meesha ku baxay ya waa sidoo bilowgii ugu sheegay way bilowgii ku sheego waxay fududaysteen inaan qofkan daba gelgelin waanin wax barin oo diiniga iyo midna barin la sheekaysan fuulkiisa weydin si caqliyana ilmihii may khuriyeen ay odad xaalado badan way jireen jaahilnimana way jirtay qofkii waxa laga yaabaa inta ilmahan saxkiya ama gabadha wasiyada waxa laga yaabaa hooyooyin ay suuqa fadhiisato aabihiina amal bahayn marka way fududaysteen sidoo kale sheeko oo kortu ruutay qaateen waxay ilaahay garasho qofkan saas uu ku ama hablo waxa jira habeenkii marka hooyadu soo noqoto maalmo dhan ka maqan leeyahay jiray ay fadadaha markay inta ama laanga daaq maqnaato habeenkii kale markay meel aado inta soo noqoto eegi control ugu sameyn jiray dus ayna kaliya qofkaas ka dhaxeeyay ee communication la sameyn jiray oo hoosteeda wacyigelin waxa ugu muhiimsan wacyigelin iyo wax isweydaars in la waaniyo dadkii la wargeliyo khasaare iyo faa'iido loo sharaxo lala sheekaysa carruurtii waalidiintuna inay ogaadaan natiijada iyo xun ka dambaysa hadhow وقبلنا سوق كاركت أما هن قط دنك عاد أما هن قط دنك داليدا إن لبضة أي واحد درن ما أنا عمري قلت لي ده بحروق مترسو I think like next step إما اسمه أو تذكر الناس برا دبنت جوجا تذكر من مقدر بسومالي جوج بشر إنه بسعره أو ده سشرعيا ماشي دونت هناخد أما كلمة أما سومالي ماشي دونت هناخد شرعيا أنت ستوب وضرب جدنيك إنه مقطع كذا واحد كان على الصومالي
So basically halkaas inuu dagaalka jiro. I don't think Netherlands dhexdeeda laga sameeyo ama Europe dhexdeeda. So European-kan iyo Netherlands-kan iyo intay Soomaaliya caawinayaan ay leeyihiin waxaan ku caawinaynaa inay ku xiraan condition. Haddaa gabdhihin gudihiisii mana caawinayno. dadka ugu badan dadka lacagta u dira waxaa waaye diaspora dadka familiga qofka lacag markuu diraya oo dhaho ik ga geen geld sturen als jullie praktijk hebben. Dus begin bij ons hier in de diaspora, we moeten gewoon ons land iets om gedacht te veranderen. En de wet in Somalië. والله اليوم تسيب شو بكرة شيء لا فكرنا لكن وعي قلت هالشو وعي قلت هالشيء كوميونيكاسيون